xafiiska waxaan tagay wasaaradda awqaafka wasiirka iridiisa anoo jooga isaga uma basoceenba meel kale u socday baan yar dhalinyaro meesha ka shaqeeyay ayaan arkay aan qiinay wuxuu yiri yarkii baa igu dhago wuxuu yiri sheekh maalmaha waa ku dayday waa kuway shaqadii laga eri laba bilood baan hadda ninka wasiirka aan muqaabaladiisa inaan qaabilo kaliya dayday waa marka takfa yani khayr Allah ku sii oo kale hadaad waxay qaban karto marka bal khayr baan insha Allah nin fiican baad hayda ma wuxuu dhageyso waan dadaalaya baan marka wuxuu rabaa inuu ii sheego arintiisa wasiirka inuu sameyn karo yani meelaha kale ka soo dhamaatay shaqada laga eriyo waxa ku celin kara wasiirka kaliya saasuu rabaa inuu sheego laakiin kalimad adag buu ku dhawaaqay wuxuu yiri shoof ana xaajati ma yaqdiha illa hu الباب كان فرت محوكم في غي الباب وزيرك فديه أنا حاجة ذي ما قد ذكروا إلا هو كلمة إلا هو بملك قد عليه أنا يقول نبى جريء كعب هذا يا أخي ما حاتري إلا هو مركب مقولها ضبانه ها والله إلى هذا الباب مركب هدك قولها الله يا بني مركب أسأل هو ده ملك الوقات أنا ملك الوقات أنا هو ذكي لها رسميا بان أقاطع حقيش يا جي مركبا إله العظم وحن يا من لا إله إلا هو إله كله وسجى أنا هينكو أنجرينه الله اقضي حاجة عبدك الدون كان مسكين كحاجة لي سأقوله عند هذا العبد مسكين كان حفيز كان فردية وقول مركبته وسكوير نحي مركي أريتها أنا waxaan dhageyso kelimada aad tiri waa kelimad adag illa hu ilaahan baa leeyahay ilaahay baa kan qalbigiisa iyo gacantiisa waxa dhan haya leesh taqul illa hu haddana waan kula hadlay baan kii amarku dhan hayay baan kula hadlay wa insha Allah yaqdi xaajatak marka guriga markaan duhurkii waqti dambe oo aan la soo wacbo soo wacyarkii telefoonka qabtay ya sheekh abashirak waa ku bishaaray wuxuu intii wasiirka waliga dayday maanta albaabka intuu soo furay oo yimid oo meeshii aan fadhiyay sugayay igu yimid asagu oo ikaxay oo gudaha ila fariistay buu arinteediina ay dhamaystiray oo shaqaftii ka fiican meel ka fiican dhigay soo ma anu sheekada waa iska sheegay waa waxay noqotayba waxa ay qaateen bila awliya ahayo telefoon baa igu soo dhaa sheekhow كان ور أنا وما جيدين سيداس ما أنا والله واحد كي كسعد ما أنا إذن كلي تهدد وقال لي أنا واحد تعبان ما عندي شيء لكن وحررنا إلى ربنا بررنه خلينا نتعلم لقى يا أبا مركز جري العيادي قاضي يا أرنتي إذا نقضي مركوري إلا هو إذا إلهي يقدر يشتوي ودع كرتا إن سيدنا أقرن يدو وش كدع كرتا لكن ما معناه إن أنا أولياء هيو ماشي ورمسكين برا ما عندي شيء شو ما قرر لكن وحرمنا يقين ده إنا برا تاسان كشيكي تكلان كشيكي لكن تاس تنكلا وبرجي عن مصر جوجي برجي عن مصر جوجي تا إيضا ونوعا ما وحن أورنكرا برجاس ننفع عن بعضها وانت انا ادويه مشاكل يقول يا بختي بلي وحال مشاكل كنا دقل انت انا قلنا هيدو دد اسكا يرو فريد وحا اسكاها قران كادو اخريا اسبوع كسو قران كو دما جري ايغا ما بق يعني انت ارضي ماشي كاها في كل اسبوع لازم قران كو انا دمي انيو حالد اسكا فيعن ku jiro oo dhikrigaygu iska fiican yahay ma waxaan imid airportka Qaahira waa 83kii way bariyahaas labadeed kutub badan baan intaan iibsaday bari baan inoo aan daris ahayn oo fiican oo xaajada leeyahay waa intuu soo maray 300 oo gini isi 300 waa lacag badan waxa ku gatay kutub fara badan baan ku gatay macrad kutub intaan tagay kolkaas anoo karaatiin kutub wata ayaan imid tigir baan wata meeshii markaan imid miisaanka diyaaraddu waa diyaaradda Somali Airlines waa laakiin kan kontorka jooga waa yar Masriya مساعدة ما شكاش قيس سواء ميزان كوساري لعق بدن بس صوب بحدي وحيري لعق فربضان ودي أنا هيني بوشة أنت سألك الروا
ما يعني ما هي مركا أنا كنت جسي وقات أقول كيف والله ما عندي بالي أنا قاعد مركا نودر وشينيس يعني وحوا يصير الصومالي مركا الليلة أنا قاعد نو صوفيين يسمي يعني ساسو كذا الصومالي زوجته كان صوفي واي أنا قاعد نو صوفيين يسميها واحد يلي يسوي لعقته كان وقتي ضد بدن بكو دبتها جاني أنا قال له من وقتي والله ما هي يعني ما عندي فلوس مركز المسجد ربطي أنا كل ضفته هابا وحيد هذا مديان كتبت عنده فين هذه إسكجوك كتبت هذا تقر كاغا اللي تقر كاغا ودم كتبت أنا قاعد يسه أنا كتبت كله فين هذه إسكجوك ما يلي يعني وأنا ضف هذا أبو حيد هذا ضفه كتبت أنا كتجي كراتين تن حاجة إسكال ما يلي يعني كتبت وين إلى ضفته مركز وحنا مركز رساكوي وتشترط علينا أنا قاعد حتى هذا ساسة أدرتها هذا أنا شرط يسميها أتحداك بقول أتحداك محل أورن كرنا هذا الصومالي يا عرو كاسو كله يعني تحدي بان سمينا يا فوز إن هذا الذي كتبتها وذا دوفي أنا سي الله بيجي نقطة وحال وأنا أتحداك إن أنا كتبتها وذا دوفي أنا أقول تحدي بان لا يمد بالي إلا وإلا بأني كتبتها وأنا وذا دوفي والله إن أنا وحن أجهل يوحي يقدم بي أين جري لكن إلهي محيو وافجي سقط حي أهيو ديارد وحي بحضها لحظة الصبح نما مالعس تلياني كتب هذا حمر بأسعته سقط حي أهيو كتبتي بميل حاجة إيجا توري باسبور كي يتيجي الكيبان قاتي مساجد كاسك قلي وردي القرآن كاسك أخرجته بينك ولما يسكتوا كلام إله وأنا كتبت وذا الدوفي باني إله وأنا كتبت وذا الدوفي يعني كلا هرد والله ديارده كاونتر كيد ولا حري وقتيgeed waa dhamaaday waa la xiray dadkii rakuubka ah meesha fariisteen aniga wax ii go'an ma jiro dabadeedna waxaan iska imid masaajidkii salaada subax baatay salaada subax baan tukanay wala adimay wala aqimay dhar waxaan qabay markaas dharka culimada iska qabayo jubbad yaan iska qabayo dharkan azartay jubbad baan qabi jiray imaamad iyo qolom baatirina tuji salaadii waan iska tuji salaadii markii aan dhameynay salaadii ka baxay ninkii igu xigay ee safka fadhiyay wuxuu ahaa nin daabit yani darajo sare leh oo askari ah xidiga far badan ka muuqdaan ayuu ahaa markaan soo fiiriyay ninkii ilin baa ka socota waa ooyay yabki wallahi yabki bayna yaday Allah subhanallah marka baasaboorkayga iyo tigirkana meesha yileen salaada aan ku tukanay ila ma hadin baasaboorkay tigirkii buu qaaday wuxuu fiiriyay diyaaradda ay tahay iyo waqtiga ay maaragtay tahay wuxuu ogaaday in diyaaradda Somali Airlines tahay waqtiga baxayso wuxuu ugu yiri ya akhi sheekh fadilat sheekh barakallahu fiik diyaaradda waqtigeeda waxba nooga dhiman kowde xoogay quraan noo akhri xoogay quraanka noo sii akhri quraan kale noo sii akhri anna waa iska jidbaysnaa quraanka baan u sii asagina oo hibbo ka shaqaal ninkii wuxuu noqday ma taqaanaa amn al-matar wax la yiraahdo jira masaaridu amnigoodu xoog bulaha amn ad-dawla matarka amnigiisa ninka ugu sareeyo aha yani matarka dhan isaga ugu sareeyo qof hadli kara male uu noqdayba markii quraanka dhameeyay waa bay kaxay xafiis kor ugu yaala oo quraasi badan taal lagu fariisi shaahi arabu ii dalbay waxyar kadib baasaboorkii wuxuu yiri maxaa u sameeysan weeyday counterka oo miisaankii wuxuu sameeysan marka anu waashtako waxa wallahi xoogay mushkil ay haysato miisaankii iyo ayaanan maaragtay waxayga si ahaayo marka ma dhameeyay markii uu telefoon diray yaa jooga meeshaas oo hebel balay u yara jibu kana soo qabta wallahi ninkii iyo ordaya ayaa la keenay xabeeska soo galay subhanallah markuu arkay ila wasgaranayna ani isaga taxaddi baa naga dhacay markuu arkaano ninkan waliba ninkan yani ixtiraamayo kursiga shaqada ma fariisanin kursiga soo horjeedo fariistay markaas buskudkii iyo shaahi wixii hor yaala yani madaxda sare baa loo yaala mugti markuu arkay ninkii
واسكي جري وقري سقي والله يا شيخ كيف ايوه ساعة البيت ما حجر مركز شروع قبقبت جوجي نكان محاور اقيس يقول ما يوي ليش ما خلصت هذه البركه يا اخي مركز يعني على ويس تمر يسوون وحول هذا دمينا شيء markaasuu baasaboorkii tigirkii u dhibeero ordo tago karaatiintiisii kutubtiisii u soo xaray badin baaskii u diyaaradda ku fool laana ikeen hadda markaas waliba canaan dhagta kala raacay weeli waxa waxba ahayn baad hormarinaysaa dadka wanaagsan oo ka tagaysaa ruux subhanallah alazim wallahi inaan raacay meesha iska fadhiyay uu tagay isaga karaatiintii uu meesha ku tuuray buu intuu aaday oo ururiyay oo diyaaradii saaray wuxuu ii keenay baasaboorkii iyo boarding passkii markaas waliba intuu ii dhiibay ayuu ii cudur daartay weli macleesh fadilta sheekh naga raalliho waad naga warhaysaa shaqadeena waxba iska badan macleesh ma shaqadeena badan subhanallah kadib laba kartoon oo xataa gacanta ku reebtay markaan diyaaradda sii fuulaynay ninkii wuxuu ku yiri labadan kartoon maxaad u reebato maxaa u saari weeyay waxaan waxoogay miisaankii askari buu dhiibay wuxuu yiri ninkan lama fatashi karo kow ninkan diyaaradda saar albaabada dadka lagu fatasho lama fatashi karo waa kow talabaad kutubtan uu gacanta culayska ku wado asaga uu shan qaade kursiga diyaaradda markuu fariisto la ful diyaaradda markuu fariisto oo agdhig ka soo tag waa soo wadacayo ninkii madaxda ahaa kuwa marka waxaan xusuustaa Soomaalidii markii hore fariisatay meesha diyaaradda si raacisay qaar ba marka waxay leeyihiin ninkan wasiir awqaaf miya waxa leeyahay wasiir dambi ducada iska furreyd ilaahay baa iska keen ajiib marka qasada noocaas markaan ka sheekaynayo ani tazkiyata nafsi ugu jirto wallahi alazim anu shakhsiyan inta meesha fadhida ina idin kullita ayaan yaqiinsanahay ana tacbaan ma عندي شيء laakiin waxaan jeclahay kulligeen inaan calaaqa la yeelano rabbigeen haddaan rabbigeen calaaqa la yeelano oo ilaahay jeclaano oo ku xidhno oo saacad kaste dikrigiisa aanu laazimno ilaahay umurteena waa noo sahlay wax naga halaabayaana ma jiro khusuusan mawduuca ku saabsan dikriga iyo mudaawamadiisa la daa'imayo fi hadhihi albilad wadamadan waa wadamo qafla